bisharo bilshay waxa idinku bishaareynaa inuu soo baxay buugga ayareeb ee kab dhaxeeye biyaalka xeer ciise ayaa waxa soo baxay buugga ayareeb ee kab dhaxeeye buuggan koobaad ayaa waxa ay daabacadiisa labaad soo gaadhay wadamada North America sida Mareykanka Canada waxa kale oo aad ka heli kartaa Australia iyo sidoo kale wadamada Yurub UK Sweden iyo France buuggan ayaa hortaba soo baxay 2010 kadib waxa loo fadhiistay dood cilmiyeed ku saabsan buuggan waana markii la arkay inuu yahay dhigane miisaan culus leh waxaana loo saaray guddi ay soo xushay xarunta cilmi baadhista ee Djibouti haddaba guddigan oo ka kooban ilaa 50 xubnood oo ka kala socday xarumaha dawladda ee arintaasi khusaysa ayaa waxa ay guddigan ay ka saxan buugga habka cilmi baarista waxa ay ku taliyeen guddigu inuu soo saaro guddi xeerbeegti ah oo loo bandhigo kadib waxa laga soo ururshay 12 galin ee beesha ciise degto duqayn xeerbeegti ah oo u fadhiistay muddo 3 bilood ah waxayna wax badan ka saxeen buuggan kab dhaxeeye daabacada waxa loo gudbiyay dawladda Djibouti iyadna guddi kale u saartay haddaba 2015 ayaa waxay guddigaasi amreen in si ballaaran loo daabaco kab dhaxeeye gabagabadii daabacadan labaad ee buuggan aynu ka hadlayno ayaa ah daabacad mar kale soo baxday isla sanadkii 2025 oo aad loo hufay waxa dalabkaaga kala xiriiri kartaa lambarada shaashada ku qoran waa buugga kab dhaxeeye ee ayareeb مديون بيدي الله مرضى بديسيو يا الله هلا يا ويا يا احدا وحيلا الله امري ابو طلو يا الله هلا يا ويا يا الماهي وريو كان وضم لي تاديغيو يا الله هلا يا ويا qoraalkan waxa la qoray Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxa la qoray 1235 markay ahayd 1235 rajib waxa qoray aw Ali Sheikh Yunus aw Barkhalle taariikh bijri rajab wa 1235 maalin isniina ayaa la qoray qalcad meesha